darteed inta badan tallaabooyinka xakamaynta faafidda ee qaran iyo talooyinka maanta la raacayo ayaa sidooda lagu sii wadayaa. Saan ku wargeliyey baarlamaanka waxaan ku samaynay talooyinka qaran isbedelo dhaqangelaya laga bilaabo Arbacada 20 Janaayo. ummadda sharafta leh waxaan hadda ka soo baxay baarlamaanka oo aan warbixin siiyey. Warbixintaa waxaan ku caddeeyey in faafidda cudurka ee Norway ay weli heer halis ah tahay. Maanta gelinkii hore waxaan la hadlay madaxda kala duwan ee dowladda. Waddamada Yurub badankood bandow bay ku jiraan. Walwal sare ayaa waxaa ka qabaan faafidda fayruska dhalan rogmay ee Ingiriiska, dhimashada oo sare u kacda, iyo hay-adda caafimaadka oo dhabar jabta. Norway waxay leedahay mid ka mid ah kontaroolka xuduudaha Yurub ugu adag iyo tallaabooyin meel dhexaad ah dadweynaha iyo ganacsiga. Waxaan u arkaa inay taasi tahay kala mudnaansiin sax ah. Waxaan kale oo aan hoosta uga xariiqay in aan ku jirno xaalad aan la isku hubin. Marka aan eegno waddamada inagu heeran waa in aan ku talagalno xaalad inay ka dari karto ama ay ka roonaan karto. Waddanka faafidda kor ayay ugu kacday xilligii ciidda Kirismaska iyo sanadka cusub. iyo curashadii kadib cudurkana waxa uu gaaray meelo cusub noocan cusub ee fayruska oo ka faafid oo kii hore walaac buu nagu hayaa dhammaan muddadii ay xaaladan adeegi jirtay waxaan mar kasta isku dayayn in aan isu dheelitirno wax u dhigma xaaladda cudurka iyadoo haddana la samaynayo ka hortag iyo in si degdeg ah wax looga qabto sanadka bilowgiisii waxaan ka cabsi qabnay in faafidu faraha ka baxdo oo ay dhici karto in faafidda Norway ay gasho jawi cusub sidaa daraaddeed ayay dawladdu go'aamisay 3 Janaayo in tallaabooyin xakamayn oo adag laga hirgeliyo dalka oo dhan lama gaarin xilli si buuxda loo qiimeyn karo faa'iidooyinka tallaabooyinka balse tirada faafidda ee aan aragno waxay muujinaysaa in ay faa'iido yeesheen tallaabooyinkii waxaan ku faraxsanahay in dalka oo dhan ay dadku gacan buuxda ka geysteen xakamaynta faafidda waad mahadsantihiin balse faafidda cudurka ee Norway weli way sarreysaa oo waxaa loo baahan yahay in la sii wado tallaabooyinkii adkaa sidaa darteed inta badan tallaabooyinka xakamaynta faafidda ee qaran iyo talooyinka maanta la raacayo ayaa sidooda lagu sii wadayaa saan ku wargeliyey baarlamaanka waxaan ku samaynay talooyinka qaran isbedelo dhaqangelaya laga bilaabo Arbacada 20 Janaayo sidaa waxaan u yeelaynaa oo ujeedadu tahay in nolol maalmeedka carruurta iyo dhalinyarada laga dhigo wax yar oo caadi ah mar kale haddii ay dadka qaarkood wax dhaafeen waanigan ku celinaya heerka tallaabooyinka qaran ee quseeya dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waxaa lagu samaynayaa hoos u dhigis heerka casaanka ayaa laga bedelaya oo waxaa laga dhigayaa heerka huruudda degmooyinku waxay sii wadi karaan heerka cas inta laga baxayo usbuucan hadday u baahayiin wakhti ay ku diyaariyaan isbeddelka laakiin degmooyinka heerka faafitaan ku badan yahay waxa uu wacan inay ka fekeraan in dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ku sii jiraan heerka cas xataa xanaanooyinka carruurta iyo dugsiyada hoose waxaa meesha ka baxaysa taladii ku saabsanayd in la joojiyo tababarka iyo howlaha wakhtiga firaaqada ee heerka degmo ah carruurta iyo dhallinyarada ka yar 20 sano jir waxay sidii caadiga ahayd uga qaybgeli karaan tababarada iyo howlaha wakhtiga firaaqada kuwa gudaha iyo kuwa dibadda waxaana laga dhaafi karaa kala fogaanshaha 1 mitir taas darteed waa la samayn karaa howlaha tababarada ee u gaarka naadiyada kooxaha iyo ururada laakiin weli waa in dib loo dhigo ciyaaraha koobabka iyo tartanada xataa kuwa carruurta iyo dhallinyaradu ka qaybgelayaan dadka waaweyn waxaanu weli kula talinaynaa in aanay ka qaybgelin qabanqaabooyin ka dhacaya gudaha dadka waaweyn waxay jimicsi ama tababar ku samayn karaan dibadda haddii ay kala fogaan karaan ciyaaraha heerka sare ah waxaa weli lagula talinayaa inay dhammaan ciyaaraha horyaalada dib u dhigaan 2 toddobaad waxaanu dadkoo dhan kula talinaynaa inay ilaayo inta suurtagalka ee ugu badan yareeyaan la jooga dadka kale dadka badankooda waxaanu kula talinaynaa inay dibadda ku kulmaan waa la joojinayaa taladii ku saabsanayd in layska dhaafo booqashooyinka guriga markaa waxaa mar kale la ogol yahay in ugu badnaan 5 qof oo marti ah iman karto guriga weli waxa wacan in dib loo dhigo ama la baajiyo inta badan isu imaanshayaasha gaarka iyo qabanqaabooyinka kala duwan laakiin haddii laga maarmi waayo in la qabto waxa quseeya xeerarkan isu imaanshooyinka gaarka ah ee ka dhacaya meel aan guriga ahayn tusaale ahaan xaflad dhalasho ah oo ka dhacaysa meel la kiraystay waxaa loo ogol yahay ugu badnaan 10 qof haddii isu imaanshaha gaarka ah lagu qabanayo meel dibadda ah waxaa loo ogol yahay ugu badnaan 20 qof qabanqaabooyinka kale tusaale ahaan aaska ma jiraan wax isbeddel oo lagu sameeyey xeerarka ku saabsan tirada dadka
ma ku taalinayno in laga qayb galo qabanqaabooyinka dhaqan koorasyada shirarka iyo qabanqaabooyinka diiniga ah ee ka dhacaya meel ka baxsan degmadaada 2 usbuuc ee soo socda. taladani waxay qusaysaa qabanqaabooyin ka dhacaya gudaha iyo kuwa dibadda ka dhacayaba. qabanqaabiyayaasha waxaa laga codsanayaa inay baajiyaan qabanqaabooyinka isu keenaya dad ka yimid degmooyin kala duwan. taladii ahayd in waxbarashooyinka jaamacadaha iyo dugsiyada xirfadaha laga dhigo digital waxaa hadda loo bedelayaa soo jeedin ah in waxbaridda laga dhigo digital marka ay suurtagal tahay. waxa wacan in qabanqaabooyinka qorshaysan laga dhigo digital, waxaana wacan in layska dhaafo cashar bixinta iyo kulanada isu keeni dad badan. dhammaan ardayda jooga meel faafitaan ku badan yahay waxa wacan inay helaan waxbarid goobjo ah ugu yaraan 1 mar isbuucii marka ay suurtagal tahay in loo qaybiyo ardayda koox yaryar islamarkaana loo samayn karo qaab waafaqsan tallaabooyinka hortaga faafitaanka. waxaa weli sii soconaya taladii ku saabsanayd in layska dhaafo safarada gudaha iyo dibadda waddanka. safarada lagu tegayo goob waxbarasho waxaa weli loo arkaa lagama maarmaan, balse safarada lagu aadayo qabanqaabo waxaa loo arkaa kuwo laga maarmi karo. dadka lagama waaninayo joogitaanka guri fasaxeed ku yaala Norway oo ay la joogaan dad la degan guri haddii lagu dhaqmayo talooyinka degmada ama qaranka iyo xeerarka markasta jira. waxaa kale oo la sii wadayaa mamnuucista shubista alkohoolka ee heerka qaran ah. qiimayn cusub ayaa arrinta lagu samaynaya isbuuca dambe. tallaabooyinka kale oo dhan waxay sii soconayaan ilaa iyo inta loo baahan yahay, laakiin dowladdu si socota ayay u qiimayn doontaa xaaladda. inkastoo aanu hadda wax ka bedelay talooyinkii heerka qaran ahaa, haddana xaaladdu ma sahlana. marka la eego Norway iyo weliba waddamo Yurub ka tirsan oo ay hadda ku timid dhimasho badan iyo cisbitaaladii oo buux dhaafay. ma ogolaan karno in arrimahaasi ka dhacaan waddankeenna. taas darteed waa inaynu ku talan gallo inay jiri doonaan tallaabooyin xadidaya nolosheenna inkastoo si wacan loo bilaabay talaalistii. sida Benti ka sheegay baarlamaanka, in ka badan 80% dadka jooga Norway ayaa sheegay inay u badan tahay inay qaadan doonaan talaalka. maanta gelinkii hore 48,680 oo ah talaalista COVID-19 ayaa ka diiwaan gashanaa diiwaanka qaran ee talaalada, islamarkaana shalayta ayuu qofkii ugu horeeyey ee lagu talaalay waddanku qaatay qaadashadii labaad. waxaanu rajaynaynaa in qayb badan oo ka mid a dadka cudurka u nugul la talaalay xilliga ciidda Easterka. waxaanu hadda aaminsanahay in xagaaga talaal la siin karo dhammaan dadka waaweyn ee raba. waxaa weli shaki ka taagan yahay keenista talaalada iyo talaalada heli doona ogolaansho. taas darteed weli lama hubo sida wax noqon doonaan. dhibtan waa laga bixi doonaa, laakiin weli lama gaadhin xilli aan isdhigan karno. fariin muhiim ah ayaan maanta u wadaa bulshada Norway. waa in aynu sii wadno mas-uuliyadda aynu isa saarnay. waa in qof kastaa mas-uuliyad iska saaro inaan la qaadsin isna aanu dadka la qaadsin, islamarkaana waa in aynu xadidno la jooga dadka kale. waa inaynu mas-uuliyad iska saarno dadka kale. dad badan ayaa dhibaataysan hadda, qaar ayaa muddo dheer dhibaataysnaa. waxaa jira telefoonno la wici karo haddii caawimo la rabo iyo xirfadyaqaano caawin kara dadka ku sugan xaalad adag, laakiin waxaa iyana muhiima in dadku dadka kale mas-uuliyad iska saaraan. telefoonka ka wac, la soo lugee, ka waraysa xaaladda. waa in aynu isu damqanno. waa fariin muhiim ah waayo wakhti ayay qaadanaysaa inta xaaladdu caadi noqonayso.